Sheekh Maxamed Cali Biixi oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Sanaag iyo gudida qaadaan ururinta Masjidul Fadhi oo ah masaajid laga dhisayo magaalo xeebeedda qadiimiga ah ee Xiis ee gobolka Sanaag ayaa shir jiraayad oo ay si wada jir ah u qabteen waxa ay si ballaaran ugu mahadnaqeen dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay qaadaan ururinta masjidkaasi sidoo kale waxa ay dhammaan muxsiniinta iyo dadka khayrka jecel iyagana ugu baaqeen inay ka soo qayb galaan qaadaan ururinta loo sameynayo dhamaystirka masaajidkaasi waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Cali Biixi waxaanu halkan uga mahad celinaynaa dadkii muslimiinta ahaa ee ka qayb galay tabarucaadkii Masjidul Fadhi ee magaalada Xiis dadkaasi oo rag iyo dumarba isugu jiray oo wixii ay ku darsadeen hor Ilaahay habeen aakhiro ay geysteen ayna soo gaadhay oo runtii si xilkasnimo ah iyo lilaahinimo ah intay u soo direen hor soo gaadhay aan rajaynayno Ilaahay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro maalinta qiyaame ee la qaawan yahay ee la qatan yahay ee qofku miisaanka misqaala darra wax u cusleeya uu u baahan yahay in Ilaahay miisaanka ugu daro dembigooda iyo dembiga waalidiintoodna Ilaahay inuu dhaafo cafis iyo caafimaadna Ilaahay inuu siiyo sacaadada labada daaroodna Ilaahay inuu siiyo Ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu cimriga u barakeeyo caruurta u barakeeyo caafimaadka u barakeeyo hantiga ay baxsheen inta u hadhay Ilaahay wax ugu sii barakeeyo ciwad khayr qaba waxay baxsheen wax dhaama u soo gadaal mariyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa in guriga Ilaahay waxa ay ku darsadeen sida uu rasuulku noo sheegay ballanqaadkii ahaa in qofkii ka qayb gala amba dhisa masjid ay yaraado hase weynaade in Ilaahay jannada guri uga dhiso Ilaahay inuu taasi u xasiliyo baan Ilaahay uga baryaynaa oo guriyaha jannada mid ka mid ah dadkaasi dhammaantood u dhiso sidaasaan ugu ducaynaynaa goori ayaan jazaakumullahu khayran aad iyo aad Ilaahay idinka abaalmariyo sidaasi degdeg ah aad uga soo jawaabteen aad u bixiseen dadka kale walaalada ah iyagana sidaasi la mid aan doonaynaa iyagana in ay wixii ay ku darsan karaan ay ku darsadaan waa Ilaahay beedkiisii oo anna al-masaajida lillah Ilaahay uu isagu sheegtay wixii ay geystaan ba Ilaahay bay ka heli doonaan adduun iyo aakhiraba way u aayi doonaan waxaan rajaynaynaa iyaguna inay ku darsadaan wixii ay ku darsan karayaan waxa isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay ganacsade Axmed Shire waxaan halkan aan uga mahadnaqaynaa aad iyo aadna aan ugu ducaynaynaa dadkii ka soo qayb galay qaadhaanka sida sheekhu ugu duceeyay inteeda kale ducada aaminna waanu lahayn hadda ayana insha Allah inta hadhay soo qalaqdo sida sheekhu sheegayna ducada waxaan ku laban laabaynaa in Ilaahay qof kasta meeshu ka soo saaray uu wax ka khayr badan u geliyo Ilaahay jannada geliyo Ilaahay ubadka u barakeeyo Ilaahay waalidiintooda u naxariisto qof kale wuxuu u niyeeyena Ilaahay inuu ka aqbalo ويونس الشيخ أحمد عريقابو.